السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لا قربي كسر هذا ويلكي الدنيا يوحترك بالشدة أنا وحنا حفصال كنا قدامنا نسمع حفص الشانل على برنامج واحد نسوق بالسلسلة أنا ولا شيء حفصي سود هذا ملك السعودية دفاع عالم في جولة الصومالية واحد رجالي أنا عفمات قبتين ساني وفي عنها الحمد لله سيداس السلم ذا إنا توفي عنتينا يا رجالنا سود هذا ما أنت مقال عصب ما أنت محايدين وذا برنامجي مالمهان وحاسوبته وحيابا أن لو فرحينين أن لو فرحي كرين waxyaabo aan indhaha qaban karin waxyaabo u baahan in laga hadlo waxyaabo u baahan in wacyigelin laga sameeyo waxyaabo u baahan in digniin loo diro waxyaabihii Allah subhanahu wa ta'ala ka caroon jiray ayaa maanta lagu farxayaa lagu dabaaldegayaa waqti lagu dhuminayaa lacag lagu dhuminayaa taas oo aan faa'iido lahayn hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga careysiyo waxa ka dhalto fidno run ahaantii maalin dhaweed waxa soo gudbiyay muuqaalkaas oo gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed lagu dhiirigelinayo xumaantan ay wadaan la sii dhahay keep going maanta waxa taagantii meel wanaagsan waxaan maanta viladan ay idin sii biladan sharafta waa maanta waxa aad kasbateen waan u qalantiin in la siiyo waxayna cadeeyeen sidoo kale heerka ay maanta gaarsi ay joogaan inay garab ku siiyaan waalidiintooda walaalahooda dhamaan ayna ku faraxsan yihiin run ahaantii meesha ay joogaan in ay ka sii wada doonaan looga sacbatumaay waliba waxa lagu sii dhiirigeliyay inayna niyad jabin ayna ka istaagin ee hore u socdaan keep going macnaheedu ma taqaanin keep going ilaa naarta run ahaantii waa maqli jiray keep going ilaa naarta laakiin maanta waxa arkay gabar sameysay waa gabar Soomaaliyeed waxay tiri gabadhaas maanta waxaan xafladahan meelo badan ayaa laga qabtay Soomaaliya waxaan go'aansaday inaan ku qabto ee taariikh gasho walaashay maxaa taariikh galay maanta wax taariikh galay maadan sameeynin waxa sheegtay inaad sameyso wax taariikhda galay oo aad ku faraxsan tahay aan cid garab kugu siinin laakiin maanta wax taariikh galay maadan sameeynin waxa Ilaahay ka careynaya sameysay maanta caradaas Ilaahay waxa ka dhalatay fidnadaas oo ah in dagaal iyo qabiil iyo waxyaabo maala yacni ah in la isku qabqabsado in la dhaho maanta viladan aniga waalisi adiga lagama wacan meesha aniga qabiil hebel ahay adiga qabiil hebel tahay ani saana ahay ani kidaan ahay subhanallah horta dadkaas qalad ma lahan waay xafladaas waa laga wacay xumaantaas waa lagu dhiirigeliyay waa loo sacabtumay awaal marina lagu sameeyay dadka qaar waa loo wacay dadka qaarna ma loo bixin alxamdulillah kuwa qaar aan loo bixin Ilaahay ha ku shukriyaano Ilaahay wadada hanuunka anigu soo rido ma inaad u dagaalantaan dagaal inuu ka dhaco inaad u xanaaqdaan inaad u carootaan ma aha maanta waxa la isku dagaalay xumaantaas la isu yeeray aniga waa leega wacay qabiil hebelan ah yaani farxad ayuu arkaan dadna waxa la dhahoyaa idinka maana leega wacin qabiil hebel matihiin caay rafaad dagaal qabiil wax kasto in la isku dagaal maanta أول أيسن سمينين وح لو فرح أول أيسن سمينين وح إلهي رالي كيها أول أيسن سمينين وح أنا فائدة نوع كلي إن دهن إن يدم نوكينان كلي إن درك التوران وح هالشيء تالنت إسكو دجال مانتا أول أيسن سمينين وح لو فرح أول أيسن سمينين وح إلهي رالي كيها أول أيسن سمينين وح أنا فائدة نوع كلي إن دهن إن يدم نوكينان كلي إن درك التوران وح هالشيء تالنت إن يكجوان يا رسول الله محيتها تالنتي runta markaan ka hadlay gabdhahaas maanta xafladaas laga wacay kaliya waxay TikTok ku soo madhiyaan hees walba la soo qaado in ay iska soo duwaan oo ay ku soo jaasaan ay dharka iska soo dhigaan kadibna loo dhaxo keep going hore u socdo la share gareeyo like loo saaro oo dadka maxaa ka khaldan waad u jeedin qofka inuu xumaan ku jirmaad Ilaahay u baridaan oo Ilaahay u baridaan oo aad u duceysaan maxaad u share gareynaysiin maxaad like u siinaysiin maxaad u dhehaysiin waa qurux badan tahay wiilashan Soomaaliyeed aad idinkaan saaraan maxaad horta gabadhan markay qaabanta aad keep going u dhehaysaa subhanallah waxaan waa wallahi maanta waxaan waa wiil walba oo Soomaaliyeed Ilaahay ha ahaado midka ugu xun midka ugu qajaansan maanta maraba gabar qaab daran TikTok ku jaasayso oo dharka tuurtay oo akhlaaq iyo diin midna aan lahayn laakiin asiga keep going u qoraya walaashis guriga u joogta oo asuran tahay asiga waa waal maanta mid keep going u qoraya muusan guursanaa mana guursanaa gabar asuran akhlaaq leh diin leh xijaaban ayuu rabaa waay gabadhan u dayacaysa kaliya u ducee markaad salaad dukato u ducee Ilaahay u bari horta dadka waxaan kala yaabay wardado markaad xumaan aragtaan waay qofka ugu dhiirigelinaysaan waay u share gareynaysan waay like ugu saaraysan waay comment ugu qoraysan war maanta hadii la arki lahaa wiil xumaan faafinay amba gabar xumaan faafinayso
oo TikTok soo dhigto maanta hadii laga wada aamusi lahaa aan wax comment loo qori lahayn aan wax like loo saar lahayn aan wax share la sii lahayn wallahi billahi inaysan sida maanta u soo dhigtay aysan biro u soo dhigaleen waa weynii jabi lahayd صح weynii jabi lahayd barimaysan ku naqsteen laakiin maanta adoo u sacbatunta waa u hambaliyay keep going oo share gareysa ham ay u yeelanaysaa barimay ku soo celinaysaa laakiin waay gabdhaha markasta xumaanta faafiya aad sidaas u garab istaagsantihiin maad garab siisaan gabdhaha walaalihiin khayrka faafiya gabdhaha walaalihiin faa'iidada in soo gudbiyo maad ku taageertaan wanaaga iyo khayrka maad garab istaagtaan maxaad niyad ugu dileysaan maad garab siisaan sida aad kuwan maanta u taageersantihiin aad garab u siineysaan maad garab u siisaan insha Allah xafladan maanta la dhigay anna waxaan u qaban doonaa gabdha Soomaaliyeed wanaaga iyo khayrka faafiyo inaan bilado ku siin doono aan u hambaliyeen doono heerka maanta ay taagan yihiin inay ka sii wadaan taas ayaan sameyn doonaa maanta hadii la sameeyo xumaanta in la faafiyo wardado xumaanta qariyo waa faafinana wanaaga faafiya ilaahay ka cabsada rasuulkiisa ka cabsada war meel munkar ka socdo hadaadan afkaaga ugu jooji karin gacanta ugu istaaji hadaadan ugu jooji karin afkaada ugu istaaji maxaa dhacayna subhanallah ilaahay ka cabsada wanaaga faafiya muuqaalkiisa xiga intaan kulmi doono waxaa idinka tagayaa sidaas ii nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh